Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal kusoo dhawaada SDY channel. Maanta waxaan sameynaa bariis Rubyaan. Bariis Rubyaan waxa uu uga duwan yahay bariiska caadiga waxa weeyaan waa khudaar socoto, khudaar badan ayaa lagu daraa. Marka hadeertaan maasha Allah saa u sameyn lahayn daawasho wacan insha Allah khudaar badan aan soo diyaarsaday. Marka waa buur zucchini iyo si yar yar loo jarjaray. Maxay ahayd yaanyo fresh oo badan oo u jeedin. Khudaarta aad u badan maanta. Basal tiro badan maasha Allah. Waa 3 xabo basal adiga waaweyn iyo karooto waxaan weeyaa kabsar iyo tuuna isku soo tumay. Barbarooniga 3 nooc ah oo soo jarjaray. maxay ahayd waxa u baahanahay xawaashka marwa isticmaala maanta xawaash fresh ma isticmaalay. iyo waxa weeyaan filfil iyo qorfo. waxa u baahanahay also yogurt kaas Greek style yogurt waa plain yogurt waxa kuma jira yani iyo hal koob oo caano ah aan isticmaalayna marka waa coconut milk. marka aan bariiskan aan karinayo wuxuu khudaar badan yahay 10 qof xamal aadi ilaa ka badan cuni karto. laakiin bariiska hadii hal qof iyo 2 qof iyo 5 qof loo karinayo office la khudaartu way ka sii yaraan doontaa intaas. marka waa kaas daawasho wacan hadeertan waa kaas karootadii basashii aan isku shiileena. khudaarta kala dhan waa ka dabageey doona. marka dad hilib oo ku darsan karaan qofka rabo chicken wuu kula karsan karaa. laakiin ana khudaarta kaliya markii lagu kariyo ayaa ila fiican. chicken ama hilib waxa rabtid dib dhinac ka geeni yani gooni u karsatid. marka soo ku soo baxo bal insha Allah isla arki doona. hadaba buur zucchini aan ku daray yaanyo fresh tii kulli maasha Allah khudaarta si fiican ayay soo bislaatay waa kaas. maasha Allah barbaroonigi each time marka madaan khudaarta badan tahay mid kasta markaan ku daro waa inaan yani si fiican u qaso. hada bariiskan si karsana bariiska marka meesha waxa ku rid hal qaado adiga butter ah. bariis badan maadaama karna 2 qaado butter iyo waxaan ku daray hal qaado cusbo ah. then maxay ahayd bariiska hadda karina bariiska marka waa kaas bariiska aan karina waxa waa soo dhaqalay bis adiga biyo lama dhigin waa celery rice يعني waxa ka wada bariiska waaweyn baasara amal ah. so bariiska marka waa inuu suurmada adiga ilaa 5 daqiiqo ka yar amal inuu maskootiyo hawaaye inuu soo bislaanin waa bishard inuu soo bislaan oo karkaro sida baasada loo karkariyo amal. markaas waa miiraysa marka miirto maasha Allah khudaarta hadda si karina inta bariiskiina hadartan soo miiri doona insha Allah intuu noo karsamayo khudaarta bariiskii 5 daqiiqo amal oo inuu ka badan karsamo lama rabo si oo bariiska oo soo iskugu yani dhashu dhihin. hadda xawaashidan ku darsana adiga maadaama wax tiro badan karinayo moor xawaashi moor marqmaaji moor everything wax badan isticmaala laakiin bas wixii khudaarta tirada ka badatay iyo cuntada bariiska aan ku dari doono meesha. هذا المرقماتشي ku daray ما شاء الله. ما شاء الله وكاسا إنها سوء بسلاد مجيدة. هذا waxa ku daraa marka yogurtki ما شاء الله bas khudaarta waa isku bislaatay yogurtki aan ku daraa waa natural yogurtka Greek style ka si fiican waa ina hadda aan u qasaa marka kadib bariiskiin soo miiro aan ku soo dari doona insha Allah. ما شاء الله markii la si fiican loogu qaso waa u jeediso ku soo baxay. ما شاء الله waa kaas hada bariiski waa soo dhaqay mujada furfur soo yahay waa furfurkaas inuu ahaado 5 daqiiqo waa karkariyo waa miiro waa inuu fartamka ku riixdo oo bariiska oo jabi karaa minaha oo dan hadartan khudaartii bariiska aan korka uga shubaa si oo waa inaan ku simaa markaas insha Allah qaadaan ku simi doona. dan hadda galaaski caanaha ahay oo coconutka inta caana caadiga uu ku darsan karo qofka oo low fat ka ah laakiin aan coconut iska jeclahay mis coconut iyo waa adeertin. marka caani hadda waxa waa ina ku wareejiya geesaha daan ila bariiski ma bislo khudaartii waa ready ma sha Allah khudaarta markii bariiski lagu shubo
bishardi waa ina wax korka looga dara marka biyo inta ku dari lahayd caanaha ayaa ka fiican then daboolka u gaabinaysa maxay ahayd dabka u gaabinaysa daboolka inta saartay dabka u gaabinaysa aluminium qofkaas aluminium ku dhagsan kara bas hada bariiski waa ready waa biseel color-yiisa aniga ku darsana qof walba haduu rabo color-ka waa ka dhigi kartaa ama saafraan ku darsan kara qofka haduu rabo inuu ka dhigi kara it's not important color lagu daro laakiin aniga color-ka iska raba maasha Allah multi color inuu kusoo baxo bariiska maasha Allah soo kusoo baxda qurux afar color camal cadaan isi every color waa kala markii la gurasaan kusoo baxay chicken yaran soo sameystay oo chicken hore aan u sameeyo kala ofinka aan alforno chicken hore u sameeyay videogaas ka fiirsan kartiin chicken kaas leeyahay iyo bariiski iyo salad yar maasha Allah qof qudaartii wixii dhan ka buuxo dulsaar iyo qudaarta u baahan bariiska loo sameysto waa mahadsantiin walaalayaal like and subscribe thank you inta already subscribe ka inta kalena welcome to the channel ka jazakallahu khayr aad mahadsantiin